anaga jaaliyada Talyaaniga waxay naga soo gaartay in safiirka Talyaaniga noo fadhiyo diblomaasi ka tirsan safaaradda ee xasaanadii diblomaasiyadeed baasaboorkii ee diblomaasiya u haysto inuu booliis ku dalbaday ma gartaya oo Talyaani ah ee uu xoog looga saaray safaaradda qoorta la qabtay oo xalay jaaliyada Soomaaliyeed guriyahooda mid kamid lagu hooyay ee uu leeyahay kuma arki karo meeshan ka tag ma gartay yaa dhahaya safiirkii baa ku dhahaya leeyahay waxa hadda Cabdullaahi wuxuu warkiisa aniga taabtay waxay tahay aniga wuxuu yiri dadka handadaada u nugul miyi kuwa u nugul jira kaas oo kale oo meesha dadka joogo oo safaaradii xataa ee maartay dibadda lagu ceyrsanaya marka dawladdu laftirkeeda meelahaasi qaarkood la midka ah waa inay ogaata ay ku samaysaa dabagal cabashada ninka muwaadinka ee Soomaaliyeed ama dawladda ku jira ama aysan ku jirin in lagu xadgudbo xoriyadiisa ama la bahdilo ama lagu ciyaaro xasaanadiisa midaan la wada qabno waaye cid aan raali oga nahay ma jirto ويا هذا ما سنتين برنامج كيف فلنقاد السياسة أو عاو عن كسو قادني قد بدأ يقوم بسنة هايين نسدح الرماد أو كلاء نتوتي ماريدا قلت ماريدا أي صوبان دجان يسيد البرلمان كا لغة فلنقية هبراع مؤمرين قلت ماريدا كله هبكي أو صوبان دجان البرلمان كا أو صوبان دجان أما صحافة اللغة أركي إيو أرنت سدحات أو أنو كهادنا أو هيد xildhibaanadu waajibaadkooda si toos ah ma u gutaan mise waxyaabo ayaa jira waxaan aad uga mahad celinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo runtii waqtigiisa qaaliga ay noo soo horay iyo professor xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo asagana aan aad uga mahad celinayno waqtigan ay noo soo horeen barnaamijku waxa uu ahaa barnaamij toos caalamka looga daawanayay